daljirka Dahsoon maanta kama socoto munaasabad lagu soo dhaweynayo dawladda Soomaaliya ma jirto banaanbaxayaal dawladda looga cabanayo ama hawlo kale hayeeshee halkan maanta waxa ka socota munaasabad siyaasad loo soo agaasimayo taas oo lagu soo dhaweynayo dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa Allah yeelay boqolaal kamid ah caashiqiinta nabigeena Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa Allah yeelay ayaa barxadda daljirka Dahsoon hadda ku sugan qasiidooyin lagu amaanayo nabigeena Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa Allah yeelay ayaa halkan ka socda dadweynaha jecel nabigeena Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa Allah yeelay waxa ay wataan boorar ay ku xardhan yihiin magaca nabigeena Maxamed nabadgelyo xariis korkiisa Allah yeelay dadka barnaamijkan weyn ee nabiga lagu weyneynaya ka soo qayb gala waxa kamid ah Sheekh Saciid oo isagoo kamid ah jamaacada Reer Macallin Nuur Maxamed Siyaad bal Sheekh Saciid iga waran halkan maanta maxaa ka soconaya maxay tahay ujeedka rasmiga ah ee halkan maanta la isugu yimid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وما سنتها والالكي جزاك الله خيرا ujeedada aan sugu imaanay maanta waxay tahay waxay munaasabo u tahay bishaan oo idil oo Rabiicul Awwal ah dhalashada rasuulka sallallahu alayhi wasallam mucaashiqiinta iyo ahbaabta rasuulka jacayl sallallahu alayhi wasallam ayaa meeshaan madashan isugu yimid gaar ahaan mu'assasatu Macallin Nuur al-Khayriyah iyo Macallin Biimaalow Macallin Maxamed Xasan Biimaalow dhammaanna waxay ku faraxsan yihiin dhalashada rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka munaasabada aan u imaanay waa midaas iyada ah waaye maxay bishaan oo idil waxay munaasabo u tahay xuska rasuulka sallallahu alayhi wasallam waayahay Sheekh Saciid waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dad badan baa laga yaabaa inay si kale u fahmayaan isku soo baxan iyo hawshan ballaaranka ka socda maxaad arintan ka dhigi lahayd in intaano qof ay isku yimaadaan maxay ka dhigan tahay maxaa macno halkan ku sugan bismillaahir rahmaanir rahiim jazaakallahu khayran isu soo baxan awalan horta waxay ka micno tahay farxad lagu farxaayo dhalashada rasuulka sallallahu alayhi wasallam maxay Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin nabiyullah muhammad kuma ayna soo dirin illa caalamka idil inaad naxariis u tahay maahine rasuulka sidaas oo kale wuxuu leeyahay ana rahmatun muhdaad sallallahu alayhi wasallam anigu waxaan naxariis xaq alla laga soo hadiyay marka ilaahay maadaama uu noogu naxariistay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisa iyo soo saaridiisa ina annagana ka mahad celino oo aan ku faraxno waa wax loo baahan yahay waaye Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un waxaad ku dhahdaa nabiyullah muhammad sallallahu alayhi wasallam fadliga ilaahay iyo naxariistiisa labadaas wax lagu farxaa ku farxaan marka imaanshahan wuxuu ka tarjumaa farxad rasuulka aan u qabna sallallahu alayhi wasallam dadweynaha aad u fara badan waxay ugu dambeyn isugu tagi doonaan xarunta tiyaatarka qaranka halkaas oo ay ka dhici doonto munaasabadii weyneed warbaahinada arrimaha diinta ka shaqeeya ee ahlus sunna wal jamaa ayaa halkan xaadir ku ah oo idin soo gudbin doona dhacdooyinka qiimaha badan ee halkan ka dhacday nala socda